wax ka baro cajaa'ibta ay la gaarka yihiin ayada asal ahaan ka soo jeeda dalka Jarmalka. Si aynu iskula fahanno, waxaynu soo qaadan doonaa taariikhda iyo nolosha mid ka mid ah ayada oo lagu magacaabi jiray Rin Tin Tin, oo gaar ahaan ahaa nooca loo yaqaano German Shepherd Dogs, kaasi oo taariikhda waddanka Mareykanka bog weyn kaga yaala, isla markaana ilaa hadda la akhristo qoraalada iyo mahadhooyinka laga qoray noloshiisa. Rin Tin Tin wuxuu bishii Sebtembar 1918 ku dhashay magaalada Filleri ee dalka Faransiiska, wakhtigan oo ahayd dhammaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka. Ayaa askari Amerikaan ah oo lagu magacaabi jiray Lee Duncan 15 Sebtembar loo diray magaaladan si uu u soo eego haddii uu jiro madaar ay ciidamada Mareykanku isticmaali karaan si ay weeraro cirka u qaadaan, maadaama oo lagu jiray dagaalweynihii koowaad ee adduunka. Haddaba Duncan ayaa markii uu magaalada soo gaadhay isha ku dhuftay hay'ad aad u gaajaysan oo wadata 5 ay oo yaryar oo markaa qiyaastii jiray 7 cisho, kuwaasi oo ku jira mid ka mida guryaha yaryar ee ayada loo dhiso si ay ugu hoydaan. Duncan ayaa ayadii u soo qaatay saldhiggii uu markii hore ka soo kicitimay. Markii ay yaro roonaadeen ayadii yaryareed ayuu hooyadood siiyey mid ka mid ah saraakiisha ciidanka. 3 ka mid ah dhalihii yaryaraana wuxuu siiyey askar kala hawlgeli jirtay saldhiggii uu ka tirsanaa, halka uu isagu la hadhay ay iyo ayad yar. Kadibna aygii ayuu u bixiyey Rin Tin Tin, halka uu ayadiina u bixiyey Nanit. Kadib markii dagaalkii dhammaaday ayuu Duncan Mareykanka u soo qaatay Rin Tin Tin iyo walaashii. Rin Tin Tin oo Duncan sidoo kale ugu yeedhi jiray Rinty ayuu tababaray, isagoo ogaa cajaa'ibta ay leeyihiin ayada dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka Jarmalka. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu Duncan Rinty u qaaday mid ka mid ah tartamada ayada lagu tartansiiyo. Kadibna intii tartanku socday ayuu Rinty wacdar dhigay, markaasi oo mid ka mid ah asxaabtii Duncan uu kamarad ka duubay Rinty oo ka boodaya meel aad u dheer oo ilaa 3 mitir iyo badh ah. Markii uu Duncan daawaday muuqaalkii laga duubay Rinty, ayuu ku qancay in saaxiibkii Rinty uu noqon karo xidig filimada Mareykanka jira. Maalintaa kadibna wuxuu u soo bandhigay shirkadaha filimada sameeya si filimada door looga siiyo. Maalintaa kadibna Rinty wuxuu noqday xidig laga daba dhacay oo dhammaan shirkadaha filimadu tartan u galaan, wuxuuna faqriga ka saaray saaxiibkii Duncan. Rinty ayaa jilay filimo guulo laxaad la gaadhay oo xataa qaarkood isaga dartii loo daawan jiray, maadaama uu ka magac weynaa lagana jeclaa jilayaal badan oo xilliga Mareykanka caan ka ahaa. Waxaa taa ka daran in shirkadda lagu magacaabi jiray Warner Bros oo filimada soo saari jirtay oo markaas sii laablaabanaysay filimo badan oo ka burburay awgeed ay cirka gashay kadib markii uu ka hawlgalay Rin Tin Tin oo uu keenay guulo laxaad leh. Mid ka mid ah cajaa'ibta uu Rin Tin Tin lahaa ayaa waxaa ka mid ah inuu door kasta oo loo dhiibo sideeda uga soo bixi jiray, iyadoo aad moodaysay qof loo diray shaqo uu khibrad badan u leeyahay. Waxaa lagu xusuustaa inuu filimo badan ku jilay doorka Yey, isla markaana uu shaashadda ka soo muuqday isagoo aan Yey laga garan oo u dhaqmaya sidii oo uu Yey yahay. Rin Tin Tin awoodda uu ku yeeshay filimada awgeed, sida jilayaasha caadiga ah ee aynu naqaano, ayuu filimada hogaamiye ka noqon jiray. Filimada uu isagu aktarka koowaad ka ahaana waxaa ugu caansanaa filimka My Dad Rin Tin Tin oo ay la waday cadariishadii laga dambeyn jiray 1920yadii ee Janaal London. Rin Tin Tin markii ay xidignimadiisu cirka gashay ee dhammaan daafaha caalamka oo dhan laga wada bartay, isla markaana ay shacabku aad uga daba dhaceen, ayaa waxaa la sheegaa in shirkadaha filimadu ay isaga laftarkiisa filimada la seexan jireen
iyagoo isticmaalaya saxiix uu lahaan jiray oo la odhan jiray ka loogu aaminitaanka badan yahay Quentin Tin. Quentin Tin ugu dambayntii wuxuu dunida macalsalaameeyey sanadkii 1932 isla markaana dowladda Maraykanka iyo shacabka ku nool daafaha caalamka ayaa aad uga naxay. Naxdinta laga qaaday geeridiisa dartii ayaa sababtay in waddanka Maraykanka loogu sameeyo baroordiiq weyn, iyadoo warbaahinta dalka iyo warbaahino kale oo caalamka daafeeda ku yaala ay isaga mooyaane aanay wax kale ka sheekaynaynin. maalintii geeridiisa ka dambaysana waxaa raadiyaasha waddanka Maraykanka laga baahiyey barnaamij baroordiiq ah oo lagaga sheekaynayo taariikhdiisii, guulihii iyo noloshiisii. Quentin Tin ka gadaal waxaa filimada soo galay Quentin Tin Jr. oo aabbo ahaa iyo Quentin Tin IP oo awow u ahaa, kuwaasi oo 1950 caan baxay. haddaba tafiirta Quentin Tin ayaa ilaa hadda qaarna filimada ay ka shaqeeyaan, qaarna ay ka tirsan yihiin askarta dambi baadhista ee waddanka Maraykanka.